beeshaan ka soo jeedo maanta afkan ku dhufanayo waa goob dhaqane farta lagu fiiqeeyo oo qaranko dhan baa farta ku fiiqeeyo waxaan rabaa inaan idiin sheego bari baa waxa isqabtay Muuse Carre iyo Habaryonis inteedii kale marka Muuse Carre wuxuu ka dhex guuray Habaryonis maantay meesha lagu caleema saaray Chief Caaqil Axmed waa meeshii laga sheekeynayay ee dhiig badan oo wadareed iyo xabaalaha wadareed ku aasan yihiin halganka intaa leeg ogsoonow inaanay goobtan keliya ahayn ee boqolaalo wadareed ay dalkaaga iyo hareeraha ku wadaasan yihiin shalay magacu waxaa naloo dacareeyey magaca wuxuu noqday dembi annagoon wax dembiya gelin ayaa waayeel iyo carruur iyo madal iyo hanti wax la reebay aanay jirin maanta waxaad mooddaa in waxyaalo yareersinaga yihiin xaqiiqdan rabaa inaan isku sheegno waxaana weeye haddii ummad laga waayo tawfiiq iyo isjacayl iyo midnimo waxay ku dambaynayaan meel xun quraankay ka buuxdaa aayadaha uu ilaahay keenay ciidda ka badan warbaleega shalay kuwii lumiyay talada halkay ku dambeeyeen warbaleega shalay kuwii saa noqday halkay ku dambeeyeen salaadiinta faraha badan ee karaamada iga mudan oo ugu horeeyo hadda iyagana cuqaasha Chief Caaqil waayo karaamo gaara dhaqan cusub ayay bilowday beeshaan oo ah markii hore dhaqanka waxaa sal noo ahaa dhaxal laakiin sida naloo sheegay albaab cusub ay fureen oo ah wartayo aan wax ku dooranno yaa reerka hagi karaan dooranno yaa ummadda wax u tari karaan dooranno waxaan kula talin lahaa bilgaha meesha fadhiya inaan dhaqankaa badinno waayo dee talada khasab ma aha wiilkii suldaanku dhalay inuu halyay noqdo khasab maaha ilaahay baa dadka geliya marka albaabka cusub ee furmay aan xoojinno maantay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax ilaahay bixiyo waxa ugu qaalisan waa nabadgelyada dowlado waaweyn oo naga xoog badan oo naga hanti badan oo naga dad badan ayaa dheeman ku raadinaya nabadgelyo annana habeenkii doolarka waddada iska yaalla 12 habeenimo la iska soconayaa ilaahay baan nagu manaystay inaan ku mahadnaqno ayuu ilaahay sugayay ee ilaahay ma sugayn inaan dhexdeena isfirfiranno ma sugayn waxaan leeyahay marka aan dhexdeena ka shaqayno sidii aan dadka iskugu midayn lahayn sidaan dadka iskugu soo dhaweyn lahayn waliba beeshaan guud ee Suweera wala salaadiintoodii ay meesha ku dhayiin badideed iyo cuqaasheedii waxgaradkeedii waxaan rabaa beeshaan ka soo jeedo maanta afkan ku dhufanayo waa goob dhaqane farta lagu fiiqeeyo oo qaranko dhan baa farta ku fiiqeeyo waxaan rabaa inaan idiin sheego bari baa waxa isqabtay Muuse Carre iyo Habaryonis inteedii kale marka Muuse Carre wuxuu ka dhex guuray Habaryonis halyeyga u talinaya reerku wax allaale wixii ay Muuse Carre geysteen wuxuu ka dhigay inaan waxba lagu lahayn la cafiyo wax allaale wixii loo geystayna wuxuu ka dhigay in la siiyo wuxuuna u lugeeyay intaasoo 1,000 kilomitir oo uu ku ooyay oo uu yiri idinka maarmi mayno oo aakhirkii dambe Habaryonis kula dardaarmay gacanta midig isku geeya Muuse Carre Habaryonis haddaad ku qaban weydaan labada gacmood isku geeya hadalkayga kooban anoo beeraha kalena la hadlay laakiin beeshaan ugu mudan la hadlay waxaan idin leeyahay gacanta midig garxajis isku geeya haddaad ku qaban weydaan isaaqa sii daayo labada gacmood garxajis isku geeya
waad garanaysaan halyeyadii ka dhashay hebel maalintii ay ugu darayd waad garan kartaan reer walba geestu gufeeyey shalay mid baan ahayn dhiiggeenii walaaltinimadeennii kalgacaylkeennii baan ku jabinay quwaddii ugu weyneed Afrikada Madow waxaan idiin sheegayaa haddaanan qulubteenna midayn in si fududna loo kaga adkaan karo berrito in si fudud waxaan u dhimanay lagu waxaan karo weliba gacanta isku geeya kaliya maaha garxajis wax allaala waxay geysteen waa cafis soo cafis ma maanta wax allaala waxay geysteen waa cafis wax allaala waxa loo geystayna waylag walaalayaal walaalka hadduu wax tirsado hadduu gar daran yahay waa walaalka hadduu gar leeyahay waa walaalka ilaahay baa isku keentolay mana kala maaranno mar haddaanan kala maarmin waa inaan isdoonnaa waa inaan isbogsiinnaa waa inaan qarankeenna ka dhignaa qaran adag oon la hawaysan haddii kale cadowgu wuxuu soo marayaa kolba keenna caraysan buu soo dhex maraya walaalayaal Somaliland beelaha darafyadu markay nala kaftamayaan waxay yiraahdaan mushkilad Somaliland haysato oo beesha dhaxayn ma jirto mushkilad Somaliland haysato oo beesha dhaxayn ma jirto anna maanta waxaan ku darayaa mushkilad Somaliland haysata oo aan beesha awal iyo beesha garxajis iyo beesha habar jeclahayn ma jirto waxaan ilaahay u bariyaa waxaan ilaahay ka baryaa inaan noqono kuwa isfahma kuwa isjecel kuwa isku dulqaata kuwa iscafiya kuwa dalkooda u naxa iyo maatadooda u naxa waxa nasiib darro maanta ah jiilkii yaryaraa ee dhalinyarada ahaa ee naga dhaxli lahaa dalka iyo dadka inay horumar u sameeyaan 24 saac waxa laga hadlayaa qabyaalad cunsuriyad iyo qashin baa laga hadlayaa walaalayaal hadalka waxaan ku soo xirayaa ilaahay waxaan ka baryaa Chief Caaqil Axmed Yuusuf Shaqal inuu ka dhigo kuwa niyadayadu tabayso ee barigii hore dhaqankan ka sheekeynaya lahaybadooda salaadin ka kaca dawlad ha ku halaynina cid kale ha ku halaynina sida dadka u mideen lahaydeen waliba beeshan weyn ee subeerawal waajib gaar ah saaran wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barqad astalabaan galaal TSTV lafta faraweyne